بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه الأمين محمد بن عبد الله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بنهجه إلى يوم الجزاء أما بعد وعشر كاني أفراد فهمك سيرة نبي عليه الصلاة والسلام waxaan soo qaadanay duruus ka hadlaysay siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam fahamkeeda waxaa noogu dambeeyey oon ka soo hadalnay magacyaanta nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo nabigu inuu ahaa raxma loo soo diray adduunka dhammaantii waxaan maanta qaadanaynaa cashir kooban oo ka hadlaya taariikhdii uu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhalinyaronimadiisii waxyaabihii uu qaban jiray si aan oogu dayano marka laga hadlayo dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam kutubtu waa isku khilaafaan laakiin waxaan soo qaadanaynaa aqwaasha kuwa ugu saxiixsan ama ugu wanaagsan ama jumhuurtu ay qabaan wuxuu yidhaahday imaamkii weynaaye la dhihi jiray ibnu isxaaq saaxibu siyar wuxuu yihi kitaabkiisa siyarka ah wulida rasuulu llah sala allahu calayhi wasalam yowma اlithnayni لثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول wuxuu yihi nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhashay oo adduunka uu kusoo biiray maalin isniin ah ayuu nabigu adduunka kusoo biiru yihi calayhi salaatu wasalaam maalin isniin ah inuu nabigeena u dhashay calayhi salaatu wasalaam warada fi xadiiثi صaxiix xadiis saxiixaba kusoo aroorayba nabigeenu inuu maalin isniina dhashay calayhi salaatu wasalaam xadiiskii muslimka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday waxaan dhashay maalin isniin ah waxaa laga weydiiyey soomka uu soomi jiray maalinta isniinta ah markaasuu yidhaahday waa maalintii lay dhalay ayuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii lagu weydiiyo lagu yidhaahdo marka nabigu maalinteebuu dhashay maalin buu dhashay maalintaana waxay ahayd isniin ayay ahayd sida muslimka ku sugan xadiis saxiixa marka uu dhalanayay bisha rabiicul awal waxay ahayd 12 ayay ahayd 12 bisha rabiicul awal ayuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa taariikhda hijriyada marka laga hadlayo taariikhda laba ayay mu'arikhiintu u qaybiyaan taariikhyahanadu qaybo badan way jiraan laakiin labada ugu caansan waa taariikhda hijriyada iyo taariikhda miilaadiga waqtiga nabigeenu uu dhalanaya calayhi salaatu wasalaam waxaa shaqaynaysay oo kali ah taariikhda miilaadiyadu hijriyadu ma aysan shaqaynaynin waqtiga laakiin maalinta uu dhashay iyo bisha uu dhashay waxaan ku dhisaynaa bilaha qamariga aan ku dhisaynaa maalinta uu dhalanayay marka waxay ahayd maalin isniina 12 bisha la yiraahdo rabiicul awal sanadka uu dhashay wuxuu ahaa sanadkii la dhihi jiray caamul fiil sanadkii maroodiga caamul fiil waxa lagu bixiyay waa qisada mashhuurka ee taqaanana Allah subhanahu wa ta'ala quraankiisa uga sheekeeyay waa sanadkii ninkii abraha uu damcay inuu kacbada burburiyo oo ciidamada badan u ka haystay oo duulimaadka uu ku qaaday oo Allah subhanahu wa ta'ala uu hoojiyay isaga iyo ciidankiisa iyo wixii kacbada ku duulay uu hoojiyay Allah subhanahu wa ta'ala uu ka adeejiyay jundun min junudillah ciidan ilaahay ciidamadiisa kamid ah waxa lagu diray shimbiro dhagaxyaan naarta laga keenay kuwata lugaha iyo afka markaasay duqayaan oo duqayntii koobaad ee loo geystay ay ahaayeen ciidamadii ku duulay kacbada halka uu ku baabi'iyay waxa marka sanadka la yiraahdaa caamul fiil waana sida mashhuurka sanadkuu dhintay sanadkuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam qarniga uu nabigu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka mid ahaa quruntii la isku dhihi jiray alquruun alwusta qarniyaalkii dhexe dadka taariikhyahanadu markay taariikhda ka hadlayaan qaybo ka mid ah adduunka way qaybiyaan fatraad bay u qaybiyaan laba fatra marka koobaad loo qaybiyayo laba fatra loo qaybiyaa marka koobaad oo kala ah al-usur taariikhiya usur ma qabla taariikh
waayihii taariikhda iyo waayihii taariikhda ka horeeyey farqiga u dhaxeeyay soo qaataan ama labadan qarni waktiga ay ku kala rogmadaan waxa weeyaan waktiga la yiraahdo waxaa dhashay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam 3,500 oo sano ka hor wixii kasii horeeyey ayaa waxaa la yiraahdaa cusuur ma qabla taariikh. waqtigu dhashay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam 3,500 oo sano ka hor laga soo bilaabo wixii ka dambeeyeyna alcusuur taariikhiya ayaa la yiraahdaa. waxaa la yiraahdaa insaanku fatraad buu soo maray ama zamanuu soo maray. zamankii hore ma jirin wax la yiraahdo qoraal. aadanuhu intaysan qoraalka bilaabin taariikhda lama aqoonin. wax taariikh lama aqoonin. waxaa la yiraahdaa aadanuhu markay taariikhda bilaabeen cindamaa bada'a al-insaanu al-kitaaba bada'at at-taariikh. aadanuhu markii ay bilaabeen inay qoraal sameeyaan ayaa waxay bilaabeen inay taariikhda qoraan oo diiwaan geliyaan. waa kutubu tawaariikhdu sida ay soo naqlinayaan. waxay leeyihiin 3,500 oo sano ka hor wixii ka horeeyay nabi ciise dhalashadiisii wax macluumaad ah lagama hayo taariikhyahanadu. waqtiga wixii ka dambeeyay waxaa la yiraahdaa cusuur taariikhiya. cusuur taariikhiya marka waxaa loo qaybiyaa dhowr qarni ama dhowr casri baa loo qaybiyaa. al-cusuur al-qadiima. cusuur al-qadiima waa waqtiga aan jaagnay laga soo bilaabo ilaa taariikhda miilaadigu markay maraysay 470 iyo wax. inta fatrada u dhaxaysa waxaa la yiraahdaa al-cusuur al-qadiima ayaa la yiraahdaa. cusuur al-qadiima marka waxay ka mid tahay cusuur taariikhiya ayay ka mid tahay. waqtiga wixii ka dambeeyayna waxaa la yiraahdaa al-cusuur al-wusta. waqtiyaalkii dhexe la yiraahdaa. marka la daraasaynayo siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku jirtaa cusuurtii la dhihi jiray al-cusuur al-wusta ayay ku jirtaa. welibana awaailkii kasoo gudagalaysaa waqtigu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam. taariikhdan miilaadigu waxay maraysay markuu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam sida mu'arikhiintu qaybo kamid ay sheegeen 570 ayay ahayd. 571diina waa la soo guuriyaa. bisha miilaadi ahaan marka la fiiriyo nabigu uu dhashay calayhi salaatu wasalaam waxay yiraahdaan taariikhyahanada qaybo kamid ah waxay ahayd bisha abriil 20keeda. waa xagga miilaadiga markaan fiirino. noqdadaasi marka waxa weeyaan waa taariikhdii nabigu uu dhashay calayhi salaatu wasalaam ka sheekaynteedii. haddii laakiin taariikhda qur-aanka loo bandhigo qur-aanku wuxuu ka hadlayaa taariikh ahaan. qur-aanka waxaa jira qur-aanka waxyaabo uu la gooni yahay oo uu ka hadlo kitaabta kale aysan ka hadlin. waxaa kamid a wax la yiraahdo al-icjaaz al-ghaybi. wuxuu ka hadlaa qur-aanku waxyaabo mucjizooyin ahoo maqan buu ka hadlaa. mucjizooyinka uu maqan uu ka hadlaya waxaa kamid ah aadanaha kitaabtooda ka maqan. taariikhda adduunku si fiican qur-aanku uga sheekeynaya. nabiyullaahi aadam abuurkiisii ka sheekeynaya. samadka iyo dhulka abuurkooda uu ka sheekeynaya. meesha taariikhyahanadu ay leeyihiin bada'a al-insaanu wat-taariikh cindamaa bada'a al-kitaaba. aadanuhu waxay qoraal taariikhda ay bilaabeen markay qoraal bilaabeen macluumaadka adduunka laga hayaba ay kasoo bilaabeen nabi ciise dhalashadiisii wax yar ka hor. qur-aanku wuxuu ka sheekeynayaa adduunka bilowgiisii uu ka sheekeynaya taariikh ahaan. waana mucjizaadka qur-aanku uu la yimaaday calayhi salaatu wasalaam. waa mucjizaadka qur-aanku uu la yimaaday oo allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa uu nooga sheekeeyey. marka taariikhdaasaan hadda ka sheekeynay waxa weeyaan waa waqtigii nabigu uu dhashay calayhi salaatu wasalaam. nabigu markii uu dhalanayay adduunka wuxuu kusoo beeray isagiyo agoon ah oo aabihii wuxuu dhintay isagoo ku jira caloosha hooyadii 2 bilood oo kaliya ayuu aabihii dhintay. wuxuu marka adduunka yimaaday nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo yatiima oon aabba lahayn.
markii uu dhashay nabigu calayhi salaatu wasalaam carabta dhaqankeedii waxaa ka mid ahaa ilmaha yaryarka ah in ay islaamo naaskooda nugsiiyaan oo dumarka la kiraysto baadiyana loo diro ayaa ka mid ahayd dhaqankii carabta ayagoo markaa aaminsanaa cunugu baadiyaha markuu kusoo barbaaro oo luuqadii uu kusoo barto oo cimilada baadiyaha uu soo fahmo oo dhaqanka uu soo fahmo ayuu la jaan qaadi karaa magaaladiina. markuu marka nabigan u dhashay calayhi salaatu wasalaam isagoo cunug yar ahaa waxaa loo dhiibay oo baadiyaha usii qaaday gabadh la dhihi jiray Xaliima. gabadhaas Xaliima gabadha aabaheed waxaa la dhihi jiray Abi Du'ayb baa la dhihi jiray. Xaliima bintu Abi Du'ayb gabadhaasaa nabigeena loo dhibay calayhi salaatu wasalaam. baadiya geysay, baadiyahaasi muddo kusoo haysay, way soo celisay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii baadiyaha lagu nuujin jiray uu soo laabtay oo waxaa la keenay magaaladii, laakiin intii ay Xaliimo haysay waxaa dhacay waxyaabo aadanaha maskaxdooda ka weyna oo nabiga lagu arkay calayhi salaatu wasalaam. waxyaabaha waxaa ka mid ahaa qoladii la dhihi jiray Banu Sacad oo baadiyaha Maka deganaa oo gabadhan Xaliimo ay ka soo jeeday meeshay degi jireen waxaa ka jirtay abaar aada u xun. abaartaasoo xoolihii caana laga waayay, geedahana caleen laga waayay, dadkiina ay baahi badan aada u dareemayaan. markii nabigeena la geeyo calayhi salaatu wasalaam sida ay soo rabayaan culimada wax soo guuriya ruwaada la yiraahdo iyo taariikhyahanadu, markii meeshii la geeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam tagayara kullu shay kasta uu isbedelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. markii meeshii la geeyay ashyaada isbedelay waxaa ka mid ahaa xoolihii inay darareen, waxaa ka mid ahaa geedihii inay doog yeesheen, meeshii inay barwaaqo isu bedeshay abaarta ahayd ayaa ka mid ahayd nabigeena marka la geeyay calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii dhacay. taasoo Allah subxaanahu watacaala uu ku muujinayay cunugan yarka ah ee baadiyahan qoladan reer Banu Sacad jooga, magaalada Maka baadiyaheeda jooga, inuu noqon doono nebiyu raxma, nebiga naxariista. baadiyaha markuu tagay naxariistii bilaabato barwaaqo ayuu dhulkii noqday. waxyaabaha kale dhacay waxaa ka mid ahaa markii uu baadiyaha joogay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam oo gabadha Xaliimo ee haysay kutubu tawaariikhduna ay soo guurinayaan, kutubta tawaariikhduna ay soo guurinayaan. nabigu isagii oo meelaha 4 sano jira oo asaga iyo wiil kale walaala ahaayeen oo naaska wada nuugeen duleedka meeshii la deganaa xoolaha ay la joogaan ayaa waxa uu yimaaday 2 malag. labadii malag markay u yimaadeen nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxay ku sameeyeen waxa la yiraahdo amaliyaad ama qalitaan bay ku sameeyeen. xagee ka qalayaan? waxay ka qaleen qalbiga. labadii wiil oo meeshii jooga markii nabiga intay niman u yimaadeen ay qabteen ee qalbigiisa dilaaciyeen ee qalbigii la qalay ayuu cunugii kale intuu sasay ayuu cararay, isagii oo qaylinaya ayuu heerkii galay. markaa wuxuu heerkii u cadeeyay Xaliimo iyo zawjkeedii iyo dadkii meeshii jooga wuxuu cadeeyay cunugii yaraay Quraysh la ekeen heer Quraysheed ee nala joogay walaalkay ah waa la qalayaa hala gaaro, niman baa qalaya oo dhibaato u geysanaya. waxa meeshii ka soo orday Xaliimo iyo zawjkeedii iyo dad la socday, waxaana ka hor yimaaday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo qalitaan intii lagu sameeyay soo baxay. wejigiisuna uu bedelan yahay oo midabkii hore uu lahaa aan lahayn, oo ka dareemayso wejigiisa isbedel maadaama cunug yar oo niman uusan aqoon gowrac iyo qalitaan ay ku sameeyeen, wejigiisu uu bedelan yahay ay ka hor yimaadeen. markay guriga keeneen Xaliimo waxay u aragtay arrinkani inuu yahay arrin weyn. waxay markaa u cabsatay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka ay hayso ilmo yar oo gacanteeda ku jiray ahaa, waxayna u aragtay inay dhibayaan waxyaabo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam.
waxay u cabsatay naftiisa in loo dilo, waxaana isla markiiba u soo qaaday magaaladii Mako oo ay hooyadii joogtay. hooyadii ayaa u keentay nabiga calayhi salaatu wasalaam. hooyadii buu marka wax yar la joogay, kadibna baadiyihiiba haddana loo celiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markii uu jiray marka 6 sano hooyadii ayaa haddana dhimatay. hooyadii markay dhimatay waxaa ku kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam agoon inuu noqdo, rajayna uu noqdo. hooyana ma lahayn, aabbana ma lahayn. markii muddo uu sii joogay oo 6 sano 2 sano kale uu ku darsaday oo 8 sano uu joogay, haddana awowgii oo aabihii dhalay ayaa geeriyooday. saas wuxuu noqday nabigeenu calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii wuxuu ku noqday cunug yar oon aabba lahayn, oon hooyo lahayn, oon awowna lahayn. waxaa gacanta ku hayay laakiin adeerkii Abu Talib ayaa gacanta ku hayay oo soo barbaarin jiray oo u naxariisan jiray oo ilaalin jiray. haddii marka walaalayaal nuqtadan aan fiirino, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku soo koray agoonnimo, wuxuu ku soo koray raajaynimo, hooyo ma uusan lahayn, wuxuu ku soo koray awow la-aan. adeerkiiba la soo koray, adeerkii Abi Talib ayuu la soo koray, ilaalin jiray, aad u ilaalin jiray. dhalinyaranimadiisii muxuu qaban jiray marka nabigu calayhi salaatu wasalaam? kaana mutasifan, wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mid ku sifoobay isagiyo agoonna oo rajaya. inagu waxaan naqaanaa ilmaha agoonta ah haddaan loo dadaalin inay nolosha ka dhacaan, ilmaha rajada ah haddaan la garab istaagin inay baaba'aan. laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii iyo agoonnimadiisii iyo rajaynimadiisii iyo wixii la iskugu darsamay wuxuu ka qaaday inuu ku sifoobo run. cunugii yaraaye runta lahaa inuu ku sifoobo oo hermakoo dhan ay bartaan oo u bixiyaan cunugii runlowga ahaa. wuxuu ku sifoobay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam al-amaana, isagoo cunug yar ah inuusan weligii waxba istaba marin, shaygii loo dhiibo sidiisi in loogu yimaado, haddii wax la weydiiyo inuu runta ka sheego. aadanaha sifooyinka ee ku sifoobaan kuwa ugu wanaagsan ayuu yaraan ku sifoobay. wuxuu ku sifoobay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam isagoo agoon ahaayo rajay ahaa oo intaa ku soo koray qawinimo, inuu noqdo qof qawi ah, inuu noqdo qof qawi ahoo shaqaysta oo dadka wax u qabta. bal taariikhdiisa fiiri, nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu xaliimo la joogay iyo markuu Maka joogay, dadka wadankaa jooga waxay waagii hore aada u qiimeyn jireen oo ganacsiga ugu weyn uu ahaa xoolo intii la raaca in lacag laga qaato. dad xoololey ah oo xoolaha raacda, oo xoolaha raacitaankooda lacag ku qaato, saa ku shaqaysta u badnaay. nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu samayn jiray lam yakun yatakafaf, muusan ahayn dad gacan, qof miskiin ah oo daciif oo dadka gacanta hoostooda u dhigta oo rajtaynimadu ay ka muuqato oo agoonnimadu ka muuqato ma ahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. bal kaana qawiyan, wuxuu ahaa qof qawi ah, xoolaha intuu raaco ayuu lacag ka qaadan jiro, naftiisa ku dabari jiray. xoolaha intuu raaco oo lacag uu ka qaato dadka oo xoolaha usoo ilaaliyo usoo xifdiyo ayuu kharashaad qaadan jiray, uu naftiisa wax ugu qabanayo, dadkiisana oo wax ugu qabanayo. wuxuu samayn jiray nabigeenu calayhi salaatu wasalaam dhalinyaradiisii ganacsi buu samayn jiray. adeerkii Abi Talib xoolihii uu lahaa ayuu ganacsiga samayn jiray, garabkiisu istaagi jiray. welibana nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu khabiir ku ahaa oo aada loogu yaqaanay xoolaha markii loo dhiibee ganacsi uu galo in ilaahay ribxi badan uu siiyo. wadooyinka guushuu yaqaanay, allah subxaanahu watacaalana wuu barakayn jiray ganacsigiisa. markaasuu ganacsi wuxuu ku samayn jiray dhallinyarnimadiisiiba xoolihii adeerkii. wuxuu ganacsi ku samayn jiray xoolihii markuu 25 jiray gaxaaskii u guursaday Khadiija. wuxuu ahaa qof qawi ah buu ahaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam. waxyaabaha marka walaalayaal aan ka qaadanayna siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam qabla albictha, intaan nabigeennaba la soo saarin calayhi salaatu wasalaam, sifooyinkii uu lahaa ee qiimaha badnaa ee runta ku dhisnaa, ee ku dhisnaa ammaanada, ee ku dhisnaa ganacsiga wanaagsan, ee ku dhisnaa ummadda in wax loo qabto, ee ku dhisnaa cadaaladda, ee ku dhisnaa ka fogaanshaha qabyaaladda iyo qashinka. wadamada carabta
waagii hore nabigeena calayhi salaatu wasalaam waqtigiisii waxaa caan ka ahaa qabyaalad wax la yidhaahdo qabiilka weyn qabiilka yar buu cuni jiray, ma ayna is aamini jirin. markaasi carabtu maalin maalmaha kamid a waxay iskugu yimaadeen kacbada in la dhiso, beytka ilaahay in la dhiso. beytkii baa dhiseen. markii ay dhiseen oo dhismihii loo dhameeyey ayay waxay isku khilaafeen qabaa'ilkii joogay, dadkii madaxda ka ahaa qabiil kasta madaxiisiyaa jooga. waxay isku khilaafeen qofkii dhagaxa intuu qaado meeshii loogu talagalay dhigi lahaa ee sharaf iyo qiimo ku heli lahaa arrintaa. khilaaf xoog laa dhex maray. qolo kasta waxay u arkayeen maanta qabiilka kale hadday dhagaxan qaadaan ee meeshan ay dhigaan inay ku sharafoobayaan. qolo kasta marka waxay islahaayeen yalla in ka qiimo badan, yalla in ka sharaf badan. markii dambe oday caaqil ahaa ayaa wuxuu yidhahdee war maya, arrinka waxaan maanta u dhiibaynaa, waan iska fadhiisanaynaa. qofka koobaad ee albaabka la yidhaahdo albaab hebel qofkii ka soo galee koobaad yaan arrinta tawalisiinaynaa si qabiilba uusan sharaf ugu yeelan. allah subxaanahu watacaala qadihiisa iyo qadarkiisaa socdee qofkii koobaad ee soo gala wuxuu noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhalinyaro ah oo allah subxaanahu watacaala uusan waxyi weli u sheegin. markuu soo galay qabaa'ilkii qabyaaladu ay ka dhaxaysay iskhilaafsanaa ee kuwa isaga ay la dhasheen kuwana isaga ay ka fogaayeen, dhammaantood waxay ku qayliyeen waxaa soo galay maxamed, raallina waan ka nahay ay yidhaahdeen. maxay walaalayaal raalli uga wada noqdeen dhammaantood? waxay raalli uga wada noqdeen dhammaantood dhalinyaronimadiisii wuxuu ku sifoobay ee raganimada ah. waxay raalli uga wada noqdeen dhammaantood cadaaladii uu ku sifoobay dhalinyaronimadiisii. waxay dhammaantood raalli uga noqdeen jawr la-aantii uu ku sifoobay yaraantiis. waxay dhammaantood raalli uga noqdeen qabyaalad muusan aqoon nabigu calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii. bal xigmadda allah subxaanahu watacaala addoonkiisa uu siinaya fiiri wanaagsan ee rasuulka markuu albaabka soo galay ee arrintii isaga loo dhiibay ee qabaa'ilkii ay ka wada raali noqdeen ayaa wuxuu yidhaahday si qolana qolada kale aysan uga qiimo badan, dhagaxa waxaan u samaynaynaa buu yidhaahday, go' baa la dhigayaa, waa la dul saarayaa, qolo kasta kaabaheeda yaa dhinaca qabanaya, meeshiina waa la wada dhigaya, qolo qolo ugu faanaysa ma jiro. sidii baa dhagaxii meeshii lagu dhigay. bal fiiri walaalayaal, fiiriya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam muxuu ku kasbaday bulshadii idlayd ee uu la noolaa ee qabyaalada iyo kibirka iyo isla weynanka iyo isxaqiritaanka ku noolayd bay-adeedu ay ku noolaayeen. muxuu ku wada qanciyay nabigeenu calayhi salaatu wasalaam qabla nubuwa wa qabla risaala, intaan la soo dirin ka hor. waxa uu ku qanciyey waxay ahayd dhaqan wanaagiisii. wuxuu ku qanciyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam wanaag uu sameynayay ahaa runta, ammaanada, cadaaladda, awoodda iyo qawinimada, iyo had iyo jeer inuu ahaa qof ummadda anfaca, dadkana qabiil iyo aan u kala xigsan waxyaabo lamid ah. noqdadaas markaan dib ugu laabano walaalayaal, nabigeena calayhi salaatu wasalaam maxay tahay xigmadda ku sugan allah subxaanahu watacaala cunugan yarka ah aabbihii iyo hooyadii iyo awowgiiba in laga dilo? xigmadda ku sugan waxay ahayd haddii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qoyskii uu ka dhashay ay u wada noolaan lahaayeen sida caanka ah waxaa la yaqaanaa qoyskani waxay ahaayeen qoys madax ayay ahaayeen nabigeena calayhi salaatu wasalaam. hadday marka joogi lahaayeen oy soo barbaarin lahaayeen oo gacantooda uu kusoo kori lahaa maalinta la soo diro, waxyaabaha dadku ay xujaystaan waxay dhihi lahaayeen waa wiil qoys barwaaqo ah iyo madax iyo qoys ka soo jeeda madaxnimadii buu raadinaya ayay dhihi lahaayeen. taa allah subxaanahu watacaala si ayna u dhicin wuxuu xugmiyey magaalada maka gollaheeda buuraha dhinacyadooda in rasuulkeena laga barto calayhi salaatu wasalaam isagoo yaro agoon ah oo qof daba socda uusan jirin, inay dadka dhammaantood ay wada fahmaan oo dhexdooda uu caan ka noqdo, runta iyo akhlaaq wanaag uu dhexdooda caan ka noqdo, si risaalada dhowaan marka la soo diro aysan xujo oogu helin qoys boqortooyuu ka dhasho boqornimadii buu raadinayaa. markaas allah subxaanahu watacaala addoonkiisa yara wuxuu ku barbaariyey cinaayadiisa iyo xifdigiisa iyo dhowritaankiisa. almacsuumu man casamahu llah, qofka macsuumka waa qofku ilaahay dhowray. markaas uusan rasuulkeenu soo marinba dhalinyaranimo iyo ciyaarba uusan soo marin. waxyaabaha aan u sheegaya waxaa kamid a dhalinyarta islaamka
dhalinyarta Soomaaliyeed meel kastay joogaanba inay ku daydaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii dhaqan wanaagii uu la yimaaday waxyaabaha inagu aan samaynayno ee waqtigeena dhammaantii inaan ku dhammaynayno inaan derbi fadhiisano oon ciyaartoy ka sheekayno waqtigeena inaan ku dhammaynayno inaan u marxabanno waqtigeena inaan ku dhammayno inayna ka faa'iideysan waqtigeena inaan ku dhammaynayno had iyo jeer inaan waqtiga ku dilno banaanka iyo derbi fadhi iyo sheeko iyo haasaawo inaan ku dilno guulna ma gaadhsiinayso mana samayn nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo yar oo cunug yar ah ayuu wuxuu ahaa qaa'id nabigeena calayhi salaatu wasalaam maqiyadada muxuu ku helay muusan ku helin ciyaartoy la taageero ma uusan qiimahan ku yeelan runta iyo sidqi iyo cadaaladda ma uusan ku gaadhin in qofku meel xun taagnaada had iyo jeer ma uusan ku gaadhin waxyaabahan in qofku waxbarashada uu diido ma uusan ku gaadhin inuu noqdo qof maskiin oo iska dhaaf waalidiintii inuu wax u qabtay isagu dadka gacmaha hoos dhiganayo dhahay wax la qabto ma uusan ku gaadhin nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo sabi ayuu ahaa qof qawi ah oo dadka anfaca oo shaqaysta oo ummadda wax u qabta adigana waxaa lagaa rabaa inaad qaan gaarto adoo cunug yar ah inaad maskaxda ka qaan gaarto inaad ku fikirto inaad bulshada wax qabato eedan noqon qof faqiir ah aadan noqon qof miskiin ah aadan noqon qof aan dadka waxba u qaban karin ee isagu had iyo jeer baahan waa inaad qofku ku fikiraa inuu ummadda anfacaa waa inuusan qofku ku fikirin anigaa baahan aniga wax laga qabto sida nabigeenu uu samaynaya calayhi salaatu wasalaam yaraantiisa isagoo yatiim xigmadda rasuulkana calayhi salaatu wasalaam maxay tahay ku sugan in la qalo jirkiisa la qalo oo welibana meesha ugu khatarsanay laga qalo qalbigii ah isagoo cunug yar ah waxa weeyaan walaalayaal waxaa la yidhaahdaa irhaasaad ayaa la yidhaahdaa waxyaabaha loo samaynayo waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam 40 sano kadib wuxuu noqon doonaa rasuul hal mar hadduu saaxada kusoo boodo dadku way qariibsanayaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka muujinayay yaraantiisii waxyaabo qariiba oo ay dadku ku arkayaan si dhowaan markuu wuxuu la yimaado risaalada markuu la yimaado waxyiga uu la yimaado aysan u bacaysan ay u dareemaan yaraantiisiiba xitaa inuu ahaa qof lagu jiray oo waxyaabo qariiba la yimaado saa darteed baa qalbiga laga qalayay dadku waxay arkayaan oon xitaa qarsoonayn oo axaadiista saxiixa kusoo aroorayay meelihii laga qalay qalbigiisa ee maqaarkiisa jirkiisa meelihii la gooyay in tolitaankii uu ka muuqan jiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay malaa'igtu ku sameeyeen isagoo yar oo marka cid kaloo ayidaysa aysan jirin oo meel kale odayaal kale iyo dad khubaro oo wax u sheegaya aysan jirin in waxyaabo khawaariqul caada ah oo maskaxda ka weyn oo dadka maskaxdooda ayna keli karin ugu arko ayay ahayd si dhowaan waxa uu la iman doono ay tani daliil ugu noqoto hordhac bay ahayd marka waxyiga ayay hore u dhacayd arrinkaas waxaan rabaa walaalayaal ka sheekayntii fahamka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam darsigeenii afraad inaan intaa kusoo gabagabeeya maanta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.